toddobaadkan iyo sahanka nolosha. Muuge waxaa ka maqan lacag, wuxuuna ka shakisan yahay inuu Hanad yahay tuugga xaday. Waryaa Hanad, lacagteedii ma adiga qaatay? Aabe Muuge, haddaan rabay inaan kula noolaado, waad sheegi kartaa beddelka adigu eedan leh tuugnimo. Ceeblo waxay weli nolosha ku adkaynaysaa Daahir, sababtuna waa inuu guursanayo gabar hogaamiye u ah ciidanka ilaalada xeebaha. Waan isku kiin ogolaan doonaa haddii aad iska dhaabto surwaalkan aad xiran tahay oo nin ismoodsiiska ah. Anigu surwaal ma xirni, waan jecelahay Daahir, oo anigu asaga ayaan talada reerka uga dambaynayaa. Hanad wuxuu u muuqdaa mid aad u sii fogaanayo. Hanad, toos! Alla rabbiyow, maxay tahay budadan ku taal afkaagii sankaaga? Hanad, toos! Dadow i caawiya! Hanad! Waa ku baryaa toos! Hanad! Kuwaas iyo kuwa kale oo xiise leh kala soco riwaayadeenna taxanaha ah ee xiisaha leh ee sahanka nolosha. Jimca kaste saacaddu marka ay tahay 2:00 galabnimo, taasi oo ka soo geli doonta idaacadda Star FM, idaacadda codka gobolada dhexe, raadiyaha SBC iyo raadiyaha Dalsan. Nala wadaag fikirkaaga ku aadan su'aashii toddobaadkii hore oo ah: ma ku kalsoon tahay ciidanka ilaalada xeebaha iyo ciidanka ammaanka deegaankaaga? Xasuusnow inaad ku soo dirto nambarka 33 waynana farxad geli doontaa inaan fikirkaaga aan ogaanno. Nagala soco barteenna Facebooka oo ciwaankeenuna yahay sahanka nolosha. Sidaa iyo nabadgelyo.